Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Asxaabtaan idin salaamay meel walba oo dunida ka joogtaan. Kusoo dhawaada channelkii Khalid Media Production. Fadlan haddii aad ku cusub tahay subscribe saar, sidoo kale gambaleelkana ha iloobin. Maanta waxaan arkaynaa sida aad u horumarsan kartid channelka masana loo isticmaalo channel promoter. Okay, marka hore waxaan furanaynaa Play Store markaan sidaan usoo galno halkaas sare oo search ku qoran ayaa waxaad ku qoran channel promoter kabacdi midkan ayaad soo dejin. Hadduu ii soo degsan yahay marka open hadii markaad sidaan usoo gashid waxaa ku dhufanay meeshan balasta markaa ku dhufatid add channel ayaad ku soo dhufanay. add channel markaa ku dhufatid waxaad sameynay marka YouTube-ka ayaad tagi, linkiga ayaad soo copy garaynay halkaana bas kusoo dhigi. Okay, next markaad dhacdid meesha language ayaad doorani ayu language oo aad doonaysid. Okay, choose meeshan waxaad doonto ayaad ka dooran kartaa. Badanaa waxaan ka doortaa products. Okay, finish hadii sidaan markuu ku keeno aad waa aragteen 381 inaan marayo oo subscribers inaan marayo aragteen, viewskan 841 ayuu ii maraya. Okay, waxaa sameynay meeshan dhibac waxaan waa dhibac oo 39ka meesha ku qoran waa dhibacyo plus ku sii dhufani discover oo channels ayaa dhihi discover channel sidaas markaa ugu dhufatid sidaan ku keenaa marka. Okay, open hadii channel walba markaad subscribe dhaysid markaad sidaan usoo furtid ninka hadda wuxuu marayaa 171. Okay, waxaa u dhihi subscribe sidoo kale gambaleelka ayaad ugu dhufani meesha hadday dhibici wax ayaa ku darsamaa meesha hadday dhibacyaalkii wax ayaa ku darsamaa 36 ay yihiin soo maha doontaa wax ayaa ku darsamaya oo aragtaa 37 ay noqdaan. Qof walba aad u samaysid ma arkan oo sheegad sidaas ayuu noqonaa marka sidaas ayuu ku noqonaa. Qofkii subscribe ku dhaha marka hal dhibac oo hal point ayuu meesha ka qaadanaa. Sidaas ayaa loo isticmaalaa channel promoter. Markan channelkaagana si fudud ayuu markan kugu hormarayaa insha Allah haduu Ilaahay yiraahdo. Casharkeena maanta halkaas ayuu ku egyahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala.